gabadhan oo magaceedu la yiraahdo Xayaat baraha bulshadana si weyn loo garanayo ayaa maalmihii inay ka soo gudbin xaaladeeda caafimaad si weyn laga soo deerinay Xayaat Allah caafiyo aad bay u xanuunsan tahay waxaan rabaa xogo hor leh oo ka soo kordhay inaan kula wadaago intaan kula wadaagin muuqaalkan uu leeyahay nin la yiraahdo Zola oo arinta gabadha ka hadlayo isagoo leh garib istaag baan doonayaa inaan gabadha u muujiyo hal mar isla daawano xogta isla markaa anigu ahayna waa kula wadaagi doonaa viisaheeda Turki aniga ayaa ballan qaaday within 5 days in lagu soo saaro waxaan ku xiray dhakhtarkaasaan ku xiraya gabadhaas uma baahna TikTok live inay soo gasho gabadhaas xanuun baahaya ilaahay ha caafiyo uma baahna TikTok live iyo kuwa dhahay ilbaa kugu dhacday iyo ninaasaan kuu soo fiiriyay ninkaad inta guusha ku dhacday war ilaahay ka baq war ummadda muslimka tada wax tiri karin waxa dhahday ilaahay caafiyo ka gudbo marka gabadhan as a matter of emergency ana dhakhtar miyaan ku celiyay mar kale as a matter of emergency dhakhtar ay u baahan tahay gabadhan liver problem ahaya wixii ku qaaday waxaas Allah yaclam ana dhaqaatiir ma nihin expert ma garan karo qofkii yaqaan gabadhaas oo daawanaya fariin ahaan WhatsApp ka hal soo tirana aqoon ma leeyahay baan arkay waxaan arkay inkaas arkayna daqiiqad baan arkay waxaan ogaaday qof fiican inay tahay waxaan ka kasii kalsoonideedii qosolkeedii wanaaggeed ilaahayna caafi in lagu digto gabadhaas in ma taqaanaa kuwa nacsinta rag dumar isugu jira ay wax ka qorqoraan oo dhahan sidaan ba expert ma tahay ayu a doctor ayu f doctor أخسر ما تيجي وذاد ما تقرأ آخرين كحتى ما تيجي واحد صحيح مر نرشات كذا حدي مسلم كأمانة كاهلة حتى أروح أقول لك تروح هذا إلهي عافية مركا أصحابي وحيد كعوسنا يا كبرداس قف كي يقانا تليفون كذا وحن كحرة يقف وانظر كبحمايو فيزا تركي أو 1 year مرتبط الله صقاضية نختارك أو حق جودنا النمبر كده وعناسينا أنا حتى كلا الله وحنا قبل رأس الشيء سيستا حتى سو ما نختار ما يلماش إن كي عد أنا أنجوله أو أي كتكتي أي كليب كان ير أو كتور كان أوقاضه حياة صاحب لا يقنع أو تروس إلهنا وحنا قبلنا هي عافية غير سومالية أو قيمة بدر إنسان كارك يعني يدا تدخل دجن مارك يدا وحمانا اسمك يدا وحايس مارك ما قبلنا هذي بوستي غير الله بدر إلهي عافية قبر يروى لكن don't judge people بتكبر آدم كا مركز ما تدو حدا يسأل إيش ودعي تكون دعينا يسمع وحل اسكر راعي حياة إني تهي جوار أفجابن أخلاق بدن أو مسكينة Zola Xayaat iskureer ma ahan Soomaalida waa qabiil iskureer ma ahan wuxuuna sheegay in hal haween oo kaliya ay kulmeen halka haween in gabadha ayada ah uu ka arkay inay tahay gabar ismarkaana wanaagsan waxaan rabaa markaa sida ogsoontihiin gabadha ayada ah maalmihiin ka soo gudinay muuqaalada wixii noqon trading baraha bulshada aad baa loo wareejinay waxay taa arkay Daahir Cali oo maxkamadiisa ay tagtay oo xitaa laga wareysanayo Daahir waa nin weyn ahaan markii la yiraahdo daadiisa waxaan ku qiyaasay 65 sano 67 sano 66 sano meelahaas saas hadana ay tahay hadalada isla markaana gabadha uu isticmaalay ama su'aalaha isla markaana gabadha uu weydiinay si sax ah uma qalanto waa hooyo waa gabar isla markaana xanuunsan waa gabar walaashiis ah waxa qurux badneed in gabadhaas sidoo ku caawin karo ku caawiyo laakiin waxyaalo quraafaad ah in uu ka sheekiyo sixir iyo bilaay waxaan loo baahnayn in colaad kale uu sii kiciyo hadaladiis waxa kamid ah waxa la yaabaa muuqaalkaas inaad daawateen ama live-kaas habeenka aad daawanaysay Daahir gabadhu wuxuu ku dhahay wiilka Xayaaday wuxuu yiraahdaa awal joogtaan ayaam inaha ku dhibaateeyay oo reerkiisa ku sixireen ninkaas muxuu sameeyay waxa uu sameeyo ma tahay wax wanaagsan ma ahan because wuxuu rabaa qoys inuu burburiyo Daahir waa aabba Soomaaliyeed balse wuxuu caadeystay qoysaska dhisan inuu burburiyo haddii maanta aan dhaho Daahir Cali soo reerkaas uu burburiyay qaarkiin waxa laga inay dhalishaan oo dhahdaan ninkan maxaa ugu been abuuranaya oo ninkaas muxuu ka rabaa tusaale yar baa idin soo qaadanaya xitaa hal iyo laba idin ma soo qaadan hal bisan idin soo qaadanaya dhowr xayoodnimo soo qoonaya oo la jooday gabadhii hadda ka hor marwada dhihi jiray marwa qadiij marwa la dhihi jiray ee ninkii abti ii soo celi ku soo caanbaxay uu qabi jiray reerkaas halkee waa u dambeysay yaa kala dir reerkaas ninkii abti ii soo dhihi jiray
درب جيف ونقضي وواشي استرس بوقاضي صوبتنا دار على سوا اسكله isagaa xaaskiisa ka fogeeyey isagaa lacag isticmaalay awood uusan isagu lahayn ayuu isticmaalay kulley maalintii yawm al-aakhiro waa la xisaabtami doonaa daar cabdulla calisow haatan wuxuu rabaa gabadha xanuunsan in xanuunkeeda uu faa'iideysto sola qaybaha dambe hadalkiisa waa dhegeysanaysiin aad buu careysanaa daar calisow isma hayaan waa laba qof oo saaxiib ah laakiin saaxiib yaal runta in la sheego meesha ay ku jirtaa in la yiraahdaa hadduu qof kaa qaldan yahay waa qaldan tahay ama in qof qaladkiisa loo sheegaa waa geesinimo Zolana geesnimo ayuu muujiyey intaa markii laga soo tago daahir cabdulla calisow wuxuu u qaban waayey gabadh walaashiisa ayuu doonayaa Zola inuu qabto wuxuu yiri visa aniga ka bixinayo takhtarka aniga geyniyo shin lacag looga baahno waxaan raawo dhahay in anigu intaan ka xeeyo inaan meesha geeyo takhtarka kala hadlo muuqaalkan that's why aan u soo qaatay oo xitaa asxaabta oo la wadaagayo waxaan rabaa ninkaas codkiisa in meel dheer uu gaaro waa nin haliyey ah waa nin isla markaana runtii waxyaalaha haatan uu sameynayo shakhsi ahaantiisa anigu wuxuu yahay igama gelin laakiin haatan wuxuu sameynayo runtii wax wanaagsan oo qurux badan tahay in lagu taageero waxaan markii idiin sheegayaa gabadhaan dheeraystan ee walaashina u sheegayaa horta cabsidii tirada badan waxaan arkay muuqaalo tiro badan laga soo duubay qof kasta oo soo agsiraya qof kasta oo muuqaalba ka soo duubaya waxaan leeyahay gabadhaas ilaahi subxaanahu wa ta'ala ha isku xirto rabbi iyadoo abuurtay cilaaqad ha la yeelato ha ogaato inteeda ay dhimanayso markay teeda gaartay dhimanaysaa xanuunku wuu jiraa meesha ay ku jiraa qofka koowaad xanuunsada ma ahan laakiin waxaan rabaa waxa weeyaan xayaad waxay dadka kale uga bedelan tahay qof kasta u tagiyo caan ah qof kasta muuqaal ka soo duubayo qof kasta si uga hadlaya intaas dadka ay sameynayaan maxay ula jeedaan in gabadha la caawiyo soo mar gabadha sida loo tuugsanin waqti maanta loo wax la sii raadin lahaa lama joogay waxa la doonayaa waqti action saxda la bixin lahaa ninka waxayo gabadhaas ha raadiyo wax u diro hana u soo duciyaan caayad inta ka daana gabadhan u soo duceyno waxa kaliya maanta u baahan tahay wax weeyaan waa in loo duciyo ninkii lacag haystay caawin karna gabadha ha caawiyo intaas arinta aniga ka oranaya intaas aan saaxiib yaal muuqaalkan jeclaysan loo daago intaas aan ku soo gogoynaya intaan ka bixin waxa ka codsanay ama xasuusina hadii ay tahay markood waa channelkan ama muuqaalkii soo booqtay ina channel ku soo biirto kana min noqoto kumanaan kuna ismarkaan ugu xiran hadii aad joogtaan aad ayaa u mahadsantihiin